waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qorano shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theory waa qiso khuraafaadkii ahlu kitaabka yahuudiya waxaasay rumaysnaayeen ka mid oo waxay yidhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxa la yidhi war ninkan saynu isaga qabanaa waxa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay yidhahdeen in madaxa loo xiiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay yidhahdeen daba yuu nagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana mar baa timaha laga xiiraa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axad oo dee la isugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhaahdeen wixiiba wuu ku dubiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la isla dhinto dadka badh baa in la isku madho xalmooda in la isku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeruhu ha madhaan dawladu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku wax xalka u raaco dadku markay isqabtaan saddex xeer mid unbay maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho tanaasul can alxuquuq oo waa maxay waa waxa la yidhahdaa cafwiga inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbuu ku suurtogelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar noqo oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaqoo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhaha islaaxu daati albayn aw isulx waa compromise waa adna wax ka tagannaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana ma aha wax ka midaad cafwiday laakiin xuquuqdii oo dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana ma aha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan leh isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabaddaa inta badan gaadha